Nelson Mandela ayaa yiri markii aan madaxweyne noqday ayaa maalin qaar ilaaladeeda ka mid ah weydiistay inaan magaalada isku raacno kana qadayno hotel suuqa ku yaalo. Hotelkii ayaan aadnay waana fariisanay, waxaana dalbanay cunto. Cabaar kadib ninkii mudallabka ahaa baa cuntadii noo soo dhigay, waxayna isheeda qabatay nin miis horteeda ah fadhiya oo dalab oo dirsada sugayay. Mid ka mid ah ilaaladeedii baan ku iri, orod oo ninkaas waxaad ku tiraahdaa soo qaada cuntada oo nagu soo biir. Askarigii sidii buu yeelay, ninkiina cuntadii buu miiskeena ula soo wareegay oo dhinacayga ayuu soo fariistay, wuxuuna bilaabay inuu cuntadii cuno. Ninka gacmihiisa si joogto ah ayay u gariirayeen. Kadib markii qof walba cuntadiisii dhammaystay ayuu ninkii tagay. Askarigii baa igu yiri waxay u egtahay inuu ninkan aad u xanuunsanayo, sababta oo ah intuu cunteynayo oo dhan wuu kurboonayay. Mandela ayaa yiri maya, xaalku sidaas ma aha, balse ninkan waa ilaaladii xabsiga aan ku xirnay igu dili jiray. Markasta oo jirdil la ii geystana ayaa anigoo dhulka aala ku dhawaaqi jiray biyo isiiya, kadibna waxa uu samayn jiray madaxa ayuu iga kaadin jiray. Hadda waxaan arkay isaga oo baqaya oona kurboonaya, waxa uuna iga filayay inaan abaalkiisa mariyo, balse maadaamaan ahay madaxweynaha Koonfur Afrika, taasi dabeecadeyda iyo dhaqankaygaba ma aha. Shaqsiga daciifka ahna weligiis wax ma saamaxo.